daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada akhbaarta ugu hadalheynta badan Bollywood-ka maanta in wiilka Shah Rukh Khan ee lagu magacaabo Aryan Khan iyo gabadha Saif Ali Khan ee lagu magacaabo Sahra Ali Khan in hal film wada sameyn doonaan maalmo dhaweyd waxaa la hadalhayay in Sahra Ali Khan ku soo caan bixi doonto superstar Hrithik Roshan film uu hogaamiye ka yahay balse director Karan Johar ayaa Sahra Ali Khan kula taliyay inaysan Hrithik la sameynin filimkeeda koowaad maadaama hadalheynta iyo saameynta uu Hrithik qaadan doono maadaama uu ka caansan yahay sidaa darteed Karan Johar ayaa haatan diyaariyay mashruuc cusub oo lagu soo caan bixin doono Sahra Ali Khan iyo Aryan Khan waana jiilka cusub ee reer Khan kuwaas oo Bollywood-ka awood ku qabsan doonaan. Rajiv Masanti oo filimada falanqeeyo ayaa sheegay inuu helay xog rasmi ah oo ku aadan in Sahra Ali Khan iyo Aryan Khan xafiiska director Karan Johar ku wada saxiixdeen filim cusub oo ay wada sameyn doonaan waxaana lagu wadaa in dhawaan si rasmi ah loogu dhawaaqo filimkan labada dhalinta yar ee waalidiintooda Bollywood-ka awoodda ku leh laguna soo caan bixin doono. daawade fikirkaada ka dhiibo Sahra Ali Khan maxaa u wanaagsan in Hrithik Roshan soo caan bixiyo mise inay Aryan Khan isla soo caan baxaan? barnaamijkan waxaan ila socodsiinaya anigoo ah Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. amaana Allah sidaasii nabadgelyo.